dowladda Iiraan ayaa ku dhawaaqday inaysan u hoggaansami doonin wixii xanibaada ee lagu soo rogay heshiiskii nukliyeerka ee 2015 bayaan ay soo saartay ayay ku sheegtay in aanay hadda kadib tixgelin doonin xayiraadii tayeenta uraniumka oo aanay xadidi doonin xaddiga ay sameynayso iyo sidoo kale horumarinta iyo kobcinta cilmi baaristaba. baaqaasi ayaa waxa uu daba socday kulan golaha wasiirada ee Iiraan ay ku yeesheen magaalada Tehran, waxa uuna ku soo beegmayaa iyadoo ay si kululaatay xiisadii ka dhalatay dilkii General Qasem Soleimani ee Mareykanka ku khaarijiyay Baghdad. heshiiskii nukliyeerka ee 2015 lala galay Iiraan ayaa ku saabsanaa in dowladdaasi ay xadido howlaheeda nukliyeerka isla markaana ay ogolaato kormeerayaal caalami ah inay la socdaan howlahooda si loo khafiifiyo cunaqabatayntii dhaqaale. balse waxaa heshiiskaasi bishii May sanadii 2018 ka tanaasulay maamulka Trump oo intii lagu guda jiray ololihiisii doorashada madaxweynaha iyo kadibba markii uu noqday madaxweyne ku eedeeyay maamulkii ka horeeyay Obama inay heshiis xun la galeen Iiraan. dalalkii kale ee heshiiskaasi 2015 qaybta ka ahaa ee kala ah Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Shiinaha iyo Ruushka ayaa waxa ay isu dayeen in ay heshiiskaasi u burburin, laakiin cunaqabataynta Mareykanka ayaa kaliftay in wax soo saarkii saliidda Iiraan uu dumo, qiimaha lacagteeduna uu dhulka galo oo sicir bararku cirka isku shareero.